warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamina oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. qaraxa oo joogtiisa si weyn looga maqlay meelo badan oo caasimadda ka mid ah ayaa lagu soo waramayaa in uu si gaar ahaaneed uga dhacay isgoyska kilomitir 4 gaar ahaan wadada aada dhinaca gagida diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. warar warbaahinta ay tabiyeenayaan intooda badan waxay sheegayaan in qaraxa uu fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo beegsaday gawaari la baarayay oo taagnaa bar control oo lagu hubiyo baabuurta aadaysa dhinaca garoonka. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xilligii qaraxa uu dhacayay dadkii goobta ku sugnaa ee baabuurta saarnaa ay ku jirtay gudoomiyaha degmada warta nabadda Marwo Zainab Xabsi. qoraal kooban oo ay soo saartay ay ku sheegtay in qaar ka mid ah askartii ilaalada u ahayd ay dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen. alxamdulillah ilaahi ha u naxariisto askarteeni inta dhaawacanna allaha noo caafiyo waan nabad qabnaa alxamdulillah ayay tiri qoraal kooban oo ay ku baahisay bogeeda Facebooka. Zainab Xabsi ayaa horey waxaa waxyeello xoogan oo dhaawaca ay uga soo gaartay qaraxii uu ku dhintay allaha u naxariistay injineer Yariso ee ka dhacay xarunta gobolka Banaadir. weerarkan ayaa waxa uu ku soo aaday xilli amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho laamaha amnigu ay sheegeen in si weyn loo xoojiyay. isla bartan dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay qaraxyo ismiidaamina oo ay ku dhinteen mas'uuliyiin dawladeed iyo dad shacab ah. welina dawladda ma soo saarin xog dhammaystiran oo ku saabsan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dhimashada iyo dhaawaca iyo burburkaba. wixii ku soo kordha halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. haddii muuqaalkan markii ugu horeysay aad page-kayga ka daawanayso like iyo follow dheh, sii share garay muuqaalka. mahadsanidin.